gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Xasan Jaamac Xoday oo weheliya maayirka magaalada Boorama Maxamuud Sheekh Ibraahin ayaa maanta kulan la yeeshay qaar ka mid ah culimada gobolka Awdal oo hogaaminayay suduwaha wasaaradda diinta iyo qaafta gobolka Sheekh Xamuud Ladiif Axmed. Kulankan oo ka dhacay xafiiska maamulka gobolka Awdal ayaa lagaga arrinsanayay sidii culimadu doorkeeda uga qaadan lahayd nabadgelyada gobolka, bulshadana ugu wacyigelin lahayd horumarinta Boorama iyo guud ahaanba gobolka Awdal. Barasaabka gobolka Awdal iyo maayirka magaalada Boorama oo ugu horeyn hadalka qaatay ayaa ka warbixiyay nabadgelyada guud, waxaana ay xaqiijiyeen in la sii daayay dhalinyaro dhawaan lagu xidhay magaalada Boorama, iyagoo sidoo kalena carabka ku adkeeyay inay ka shaqaynayaan sidii dib xorriyadooda ugu heli lahaayeen dhalinyarada kale ee weli xidhan. waa sida ay hadalka u dhigeen. Intaa kadib qaar ka mid ah culimada gobolka Awdal oo hadalka qaatay ayaa uga mahad celiyay maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama shaqada culus ay bulshada u hayaan, iyagoo sidoo kalena ballan qaaday inay kala shaqayn doonaan nabadgelyada iyo horumarka gobolka Awdal. Cabsalaan Saha, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Boorama.